okay kan nooga horeeya wuxuu noqonayaa proper fraction waa jajab quman jajabka quman muxuu noqonayaa jajabka quman wuxuu noqonayaa okay haddii uu if the numerator is smaller than denominator the value of fraction is less than 1 waa inuu hooseeyahaaga uu yar yahay sareyahaaga uu ka yar yahay hooseeyaha waa inuu hooseeyaha weynaadaa muhiim tusaale proper fraction waxaa noqon kara 1/2 okay 3.4 okay 1.6 dhammaan fiiri u fiirso dhammaan maxaa weyn hooseeyaheena ayaa weyn wixii noocan oo kale ayaa loo yaqaanaa proper fraction improper fractionna improper fraction okay improper fractionna maxaa loo yaqaanaa isna jajab maqumane wey jajab maqumanaha waa maxay isna kii kale cagsigiisa wey waa inuu sareeyaha u weynaadaa numerator is larger than denominator fraction then the value of the fraction is greater than 1 kii hore wuxuu ahaa the value of the fraction is less than 1 for example 2 divided by 1 marka u qaybiso waa 0.5 4 u qaybis 3 dhammaan waxay ka yaraanayaan 1 way ka yar yihiin dhammaan less than 1 ay noqonayaan waayo hooseeyaan haddii aan u qaybino mar walba waxaan ka bilowayna hoose hadduu weeyahay 0 aan ka bilowayna marda waxaan leenahay proper fractionka waa midka hooseeyihiisa uu weeyahay hooseeyaha weynaada ma xuma ee ka yar yahayna hal ka yar yahay tan laakiin muxuu noqonayaa waa midka sareeyihiisa uu weeyahay ee uu ka weeyahay isna maxay hal ka weyn weeyaan for example look at adoo kale waxaan leenahay 3 divided by 2 ayaan leenahay comma tusaale 7 divided by 2 mid kale waa inuu weynayaa 6 divided by 4 oo kale haddaba dhammaan kuwan waxaa weyn maxay sareeyaha ayaa weyn mar kasta sareeyaha ayaa weyn haddaba kii uu sareeyihiisa hadduu weyn yahay waa inuu ka weynaadaa maxay isna hal waa inuu ka weynaadaa dhammaan waa inay hal ka weynaadaan for example 2 divided by 3 maxay noqonaysaa 1 point something waa hal waa ka weyn tahay 7 qaybitan waxay noqonaysaa 3 point something iyadana way ka sii weyn tahay sooma marka waxaa laga rabaa inaad yani uu ka weynaado halkan ayaa loo yaqaanaa isna improper fraction ayaa loo yaqaanaa qayb saddexaad ee muhiimka ah inaad ogaatid waa mixed fraction waa kii la dhihi jiray jajab dhafan la dhihi jiray jajabkani waxaa loo qori karaa 3 whole number 1/2 se loo akhriyaa haddii waxaad leedahay 3 whole number 1/2 okay 3 whole number 1/2 nidaamkan wixii loo qori karo ayaa loo yaqaanaa maxay jajab dhafan 4 whole number 1/4 1/3 okay 6 whole number 1/5 wixii nidaamkan oo kale loo qori karo ayaa loo yaqaanaa ayaga mixed fraction waa jajab dhafan ayaa loo yaqaanaa ayaga haddaba waxaa muhiim ah saddexdan inaad kala fahamtid saddexdan qaybood ayaa loo qaybiyaa jajabka mar inaan proper isu geyno mar inaan improper isu geyno ama aan kala jarno ama aan isku dhufano multiplicationkiisa definitionkiisa iyo divisionkiisa iyo qaybihiisa kale waan gaari doonaa insha Allah haddaba marka waa inaad ogaataa saddexdan iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin okay mar walba aad xisaabta aad horay u socotid way kugu soo laalaabanayaan jajabka sidaas darteed ayaan ugu bilownay jajabka arrimihiisa iyo qaybihiisa ayaan ugu bilownay okay haddaba waxaan isku daynaa inaan xalino improper fraction kan kuwan waa caadi halis nooguma baahna ee decimal un baa u bedeli karnaa laakiin kuwan oo kale ayaan xalinayna mixed fraction oo kale marka xalinaysid say leedahay example mixed fractionadan kuwan meesha noogu yaalo baan soo wada qaadanaynaa aan usoo wada qaato 3 whole number 1/2 tan xalli haddaba tan sideed ugu bedeli kartaa improper fraction ama waxaan ku dhihi karaa change of the following into improper fraction right 5/2 as improper fraction okay for example write 3 whole number 1/2 as an improper fraction okay serial number u qor improper fraction dhammaan waan ka wada dhiganaynaa kuwan tan serial number improper fraction u qor marka waxaad leedahay marka koowaad hoos aad ka bilaabanaysaa qoro marka waa 2 de haddaba waxaad leedahay 2 times 3 okay 3 times 2 no matter just waa isku imaan kartaa plus 1 ay leedahay okay 3 times 2 ama 2 times 3 midda dhahdidba 3 times 2 waa 6 6 plus 1 7 7/2
haddaba muxuu ahaa improper fractionka sareeha ayaa weyn soo ma 7/2 waa kan sareehii ayaa weyn. Okay, tusaalaha labaad aan ka shaqeyno b aan usoo qaadano 4 whole number 1/3 aan dhaho. Okay, 3 dhe halkan 4 times 3 leedahay 4 times 3 plus 1 12 hal u geeyo imisa waa 13 divided by 3 dhamaan waxay ku imaanayaan improper fraction. c aan soo qaato 6 whole number 1/5 tan adiga ayaa lagu daayay is left for you adiga ayaa lagu dhaafay adiga dhageysanaya hal su'aashan 6 whole number 1/5 adiga ugu qiyaas qaadanaya qaabkan aan